كل wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka kulanka wararka falanqaynteena fiidnimo iyo xogaha qarsoon xiliyadan oo kala aad ka daawataan channelka kulanka wararka waxaanu caawa ku dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay Saciid Cabdullaahi Dani mid kamid ah beelaha ugu tunka roon Puntland oo qoorta iskula jira Dani oo tallaabo u eg tii jabka uu kala kulmay jufadiisa Cusmaan Maxamuud gaar ahaan Bahdir mid lamid ah ayuu wajahayaa inuu kala kulmo jufada Cumar Maxamuud lafa ka tirsan oo ay isku haystaan kuraas kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo qaar maanta uu xiray isla markaana uu shahaadooyin guddoonsiiyay waxna caaw ku dul istaagi doonaa xiisada ka taagan Puntland ismada dhaqanka oo digniin soo saaray iyo go'aanada culus ee Saciid Dani uga diyaara tijaabada labaad ee Saciid Dani uu ka sameyn doono waqooyiga gobolka Mudug ayaad ku daawan doontaan falanqaynteena caawa iyo xogaha qarsoon ee la xiriira sheekadan inta ka horeysa waxaan ka dalbanaynaa daawade haddii aad ku cusub tahay channelka kulanka wararka fadlan subscribe sar haddii aad ka heshid wararka iyo warbixinada halkaani aan soo gelina like garay sidoo kale aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee commentiga mahadsanid guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee SID ee Puntland iyo guddiga doorashooyinka heer federaal xubno ka tirsan ayaa shaaciyay musharaxiinta 6 kursi oo kamid ah kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay Puntland laguna qabanayo magaalada Garowe guddigan ayaa sheegay in 12 musharax ay soo buuxiyeen shuruudaha iyo habraacyada looga baahan yahay xildhibaanada ku tartamaya 6 kursi oo doorashadooda ay maalinta biri oo Jimcaha ka dhici doonto magaalada Garowe kuraasta uu guddiga shaaciyay musharaxiintooda ayaa waxay kaliyihiin hob 221 hob 129 hob 191 hob 198 hob ever 73 iyo hob 199 kuraastan ayaa waxa kamid ah labada kursi ee beesha Cumar Maxamuud Majarteen oo diidmo xoog leh ay ka joogto doorashada iyo hanaanka loo marayo kuraastaasi sida xogta aanu ku ogaanay maamulka Puntland ayaa shakhsiyaad gaar ah u xiray 6 kursi iyadoo oo 6 kale ee musharax ee ku soo baxay liiska Puntland ay yihiin malxiisyadooda hob 221 waxa kursigan si gaar ah loogu xiray Cabdirasaaq Xasan Axmed Dhokor oo ka tirsan saraakiisha hay'adda BMBF oo talis ka tirsan ciidamada Puntland kuwaas oo taageero xoog leh Saciid Cabdullaahi Dani u muujiyay kadib markii ay qoorta isla galeen taliska BSF ee hogaamiyo Maxamuud Cismaan Diyaano kursiga labaad oo ah hob 129 waxa mar kale loo xiray xildhibaan Saacdiye Salaad Samatar oo hore uga fadhisay halka kursiga hob 191 isna loo xiray injineer Cabdullaahi Maxamed Jaamac Jigato xog badan lagama hayo shakhsigan waxa uu yahay laakiin magaciisa ayaanu ka helnay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed kursiga afraad hob 198 waxa loo xiray Cismaan Cali Yuusuf Cali waana agaasimaha wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland waa kursiga dooda ugu xoog leh ay ka taagan tahay labada kursi ee beesha Cumar Maxamuud ee degta gobolka Mudug kursiga shanaad waa hob ever 73 kursigan waxa loo xiray Maxamed Cabdullaahi Kayse halka kursiga ugu dambeeyay lixaad oo ah kursiga ay leedahay beesha Cumar Maxamuud ee labaad uu yahay hob 199 waxa isna si gaar ah loogu xiray Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland ninkan waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah wadajir ee hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waana nin saameyn xoog leh gobolka Mudug ku yeeshay guud ahaan Puntland waxa lagu xasuustaa sanadii la soo dhaafay dagaalka xoogan ee uu la galay ururka Al-Shabaab iyo kooxaha ka ganacsada maandooriyaha waa nin saameyntiisa magaalada Gaalkacyo qaybta waqooyi iyo koonfur iyo guud ahaan gobolka Mudug laga dareemay kadib markii uu cagta mariyay ururadii ku xooganaa gobolka Mudug ee nabadgelyada u diiday magaalada Gaalkacyo dadweyne fara badan oo siyaabooyin kala duwan ninkan u arka ayaa soo dhaweeyay in kursiga loo xiro asahaate waxay dhanka kale walaac ka muujiyeen beesha uu ka soo jeedo oo doonaysa in kursiga uu noqdo mid furan oo lagu tartamo isinka guud ee beesha Cumar Maxamuud ayaa waxa ay sheegtay in arrintan ay keeni karto cawaaqib aan la mahdin oo uu ka dhaxlo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo u sharaxan xilka madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada ee garoomada Puntland ee labada kursi 198 iyo 199 ee kuraasta golaha shacabka ee beesha Cumar Maxamuud ayaa waxa doodooda hadda soo dhaxgalay culimada diin iyo odayaal dhaqameed kale kuwaas oo doonaya in xaaladdu ay qaboojiyaan ilaa hadda ma jiro wax heshiis ah oo si rasmi ah dhinacyadu ay u gaareen waxaana laga digayaa in gacan ka hadal ay arrintan sababto
inkastoo doorashadu ay ka dhacayso magaalada Garowe oo sida muuqata uu ku gacan sareeyo madaxweyne Dani. guud ahaan waxaan caawa intaas ku soo gabagabeynayaa falanqaynteena gaarka ah oo aan ku eegeynay doorashada maalinta berri ah 6 kursi oo kamid ah golaha shacabka ka dhacaysa magaalada Garowe. daawada haddii aad tahay nagu cusub fadlan ugu soo biir, haddii aad hore noola joogtay fadlan la gareey siina share gareey si dad kale ay noogu soo biiraan. mahadsanid.